بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي وحن كشيكن دونا قصة دي نبي زكريا يا نبي يحيى لابدودنا وحي كمديهين نبي دي رير بني إسرائيل sababtoo ah reer banu Israa'iil nebiyo aad iyo aad u tiro badan ayaa eebba u diray nebiyadaas oo badankoodu ay ka hor yimaadeen reer banu Israa'iil canaad iyo xiqdi iyo cadho ay u qabaan rususha eebba awgeed nebi Zakariya calayhi salaam dacwaddii wuu waday waanu gaadhsiiyey reer banu Israa'iil إلا ما ينتو كجاري يدأدي سد آدوين وح أوبت أهنا بكم وأرساقين مالين مال مها كمدا يا نبي زكريا وقالي مريم بنت عمران ودادد وياض يريد لكن هيد قبر الله كعبس بدن له أيضا محراب كجوكتو عبادي سنيسا كدبنا النبي زكريا وحو أركي عنتو هورتالا waxaanu yiri xagaad cuntadan ka keentay Maryama waxay ku tiri cuntadan waxay iga timi xagga eebahay xagga Ilaahay ayaa igu irsaaqay eebana waa irsaaqa cidu doono xisaab la'aan ayay tiri Maryama nabi Zakariya calayhi salaam halkaas ayuu eeba ku bariyay asagoo codkiisa hoos u dhigaya oo weydiisanaya eebihii in uu ka aqbalo ducadatan waxuu ku bilaabay ducadiisii eebow waan tabar dareeyay madaxayguna waxuu la huray waa ciro mana ihi ruux baryadaada ku khasaaray eebow waxaan u cabsooday qaraabadayda iyo ehelkayga iga dambeeya xaaskayguna waa madhalays oo ubad may lahayn ee iga sii agtaada wiilkaas oo dhaxla ehelkii nebi Yacquub calayhi salaam eebba wiilkana ka yeel mid laga raali noqdo ducadaas ayuu ku ducaystay nebi Zakariya calayhi salaam habeenada ka mid ah ayaa malaa'igtii ugu bushaaraysay nebi Zakariya inuu dhali doono wiilkaasoo magaciisa la dhaho Yaxye ibn Zakariya magaciisa oo aan hore loo yeelin ama aan hore cid la magac loo bixinin nabi Zakariya calayhi salaam markii uu maqlay arrinkii waa qariibsaday waxaanu yiri sidee bay igu ahaanaysaa wiil aniga oo da'daydu ay aad u weyn tahay oo gaboobay xaaskayguna ay tahay ruux madhalays ah malaa'igtii eebba waxay ku tiri arrinku sidaas ayuu noqonayaa waana sida uu eebba soo faray eebbana way u fududahay inuu ku siiyo wiil sidii ay ugu fududayd markuu ku abuuray adigoon waxba ahayn nabi Zakariya calayhi salaam markuu xaqiiqadii ogaaday waa farxay waa bashaaraystay maadaama wiilka magaciisana uu eebba soo bixiyay subxaana wa tacaala nabi Zakariya waxa uu dalbaday oo eebba weydiistay in uu siiyo calaamad ama astaan oo ku garanayo xaqnimada yaboohiisa eebana waxa uu ku yiri calaamadaadu waa inaad 3 casho aanad dadka la hadlin oo hadalka joojisid nabi Zakariya calayhi salaam waa u soo baxay qoomkiisii una ishaaray inay tukadaan gelinka hore iyo gelinka dambaba eebana waxa uu u waxyooday inay tasbiixsadaan oo tasbiixda badiyaan oo tasbiix badan la yimaadaan nabi Zakariya calayhi salaam waa joojiyay hadalkii 3 casho markay gaadhay xilligii loogu talagalay ayaa eebana ku arsaaqay wiil yar oo qurxoon wiilka yar waa nabi Yaxya calayhi salaam nabi Yaxya calayhi salaam waxa uu habar wadaag leeyahay نبي عيسى عليه السلام ولذلك عيسى هو يدي مريم النبي يحيى هو يدي وولالو نبي زكريا عليه الصلاة والسلام وكفر حي ويلكير ويمي
waana soo dhaweeyey wiilkii yaraa, waana koriyey, waana ku faraxsanaa. nebi yaxya calayhi salaam wuxuu ku barbaaray gurigii nebinimada ee aabihii sakariye, waxaana lagu tarbiyeeyey iimaan iyo alla ka cabsi. nebi yaxye asagoo yar oo sabi ah ayuu eebba ku manaystay xukunka ama inuu xilka la wareego. wa aataynaahu alxukma sabiya, asagoo oo sabi ah ayaa eebbaha raxmaanka subxaana wa tacaala uu ku manaystay xilka iyo xukunka. nebi yaxya calayhi salaam asagoo aada u yaroo da-diisu ay yar tahay oo sida caruurtoo kale cayaara ayaa maalin maalmaha ka mid a caruurtii ku tidhi kaalay aan is wada ciyaarne ama in wada dheelne. wiilkii yaraa ee nebi yaxya waxa uu ku yidhi laynooma abuurin inaan cayaarno. waxaad ka garanaysaa isagoo aada u da-yar oo sabi ah in uu haddana qalbigiisa ay ka buuxdo iimaan xoog weyn oo uu dareensan yahay in adduunyada tan inaanay ahayn adduunyo loogu talagalay inay ciyaar tahay, ay tahay adduunyo shaqo. nebi yaxya calayhi salaam waxa uu jeclaa inuu u baxo kaymaha oo uu dadka ka dhex baxo si uu eebbe u caabudo keligii, adduunyadana uu ka saahido. maryo fiican mausan ka gashanin adduunyada, cunto fiicanna ma uusan ka cunin, bal ee waxa uu cuni jiray caleemaha iyo geedaha caleemahooda. biyana wuxuu ka dhigan jiray biyaha webiyada iyo meelaha anhaarta ay joogto ayuu ka cabi jiray. nebi sakariye calayhi salaam wiilkiisii nebi yaxye waa waayey maalmo. 3 casho ayaan la helinba nebi yaxye, meel allaaliya meel u qabtay way garan waayeen, kadibna way baadi dooneen. maalintii dambe ayay waxay ka heleen meel god uu qotay oo uu dul joogo. dabadeedna waxa nebi sakariye oo aabihii ah ayaa u yimi, waxa uu weydiiyey yaxye maxaad la ooyi. waxaanu yidhi nebi yaxye aabbow sow iimaad sheegin in ruuxa muslimka ah iyo jannada ay u dhaxayso oohintu. waan iska ooyi inta amarka eebbahay imanayo. eebbe waxa uu waxyooday nebi yaxye inuu xoog ku qabto kitaabka. khudi ilkitaaba biquwa, xoog inaad ku qabatid. waxaana ammaanay eebbe subxaana wa tacaala isagoo leh yaxye waa ruux daahir ah oo dhowrsoon, eebbana ka cabsada, waxaanu baari u yahay waalidkii, mana uusan ahayn ruux daalima ama caasiya. nabadgelyo korkiisa ha ahaato maalintii uu dhashay, maalintii uu dhintay, iyo maalinta laysu soo bixin doono maalinta qiyaame. reer bani israa'iil oo runtii dad aada u canaad badan ah oo nebiyo badan dilay kamuusan nabadgelin. nebi sakariyana waxay maleegeen dhagar aada u weyn. maalintii dambe ayaa waxa uu ogaaday nebi sakariya inay khidaynayaan inay dilaan. kadibna waa ka baxay gurigiisii, waxa uu tegay kaynta waxa uu socdaba waxuu eebba u sakhiray in uu geed weyn uu isfurmo oo sida albaabka oo kale, sida guriga albaabkiisa oo kale uu furmo, dabeedna uu galo geedkii weynaa. kadibna geedkii waa soo xidhay. waxay ahayd arrin aada iyo aada u mucjiso ah. laakiin gaaladii reer bani israa'iil oo miishaara sita oo doonayay inay nebi sakariye dilaan ayaa kayntii soo galay. nasiib darro ibliis ayaa arkayay oo u sheegay inuu geedka ku dhex jiro nebi sakariye. kadibna reer bani israa'iil umaysan nixin da-diisa weyn iyo nebinimadiisa iyo shaqadii uu diinta kasoo qabtay, bal ee waxay doonayeen inay kaga dhameeyaan oo way kala horursanayeen. geedkii markay tageen ay miishaartii bartanka kaga qabteen. nebi sakariyana waa ku dhex jiraa. subxaan allah.
dabadeedna laba qaybood ayay ka dhigeen geedkii. nebi sakariyana waa ku dhex jira, laba qaybood bay ka kala dhigeen. markii ay miishaarta saa u marinayeen ayaa nebi sakariya calayhi salaam uu qaldhabay ama uu taahay. markuu codkiisa uu soo baxay ayaa eebbe subxaana wa tacaala uu waxyooday in uu aamuso oo uu adkaysto, haddii kale waxa uu rogayaa oo baabi'inayaa oo burburin doonaa dunida iyo wax allaale iyo waxa dusha ka saaran oo dhan. nebi sakariya isagoo u turaya oo u naxaya oo naxariis u muujinaya ayuu iska aamusay. kadibna way kala gooyeen oo laba qaybood ayay ka dhigeen. halkaas uu ku shahiiday nebigii yaxye calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaatu watasliim. nebi yaxye calayhi salaam dilkii aabihii kamuusan joojinin inuu dacwaddii sii wado oo uu sii faafiyo diintii islaamka ahayd, balse waa waday oo waa kusii dadaalay. waqtiyada nebi yaxye uu joogay waxaa jiray nin boqor ahaa. ninkaa boqorkaahi wuxuu ahaa nin hanti leh. kadibna waxaa jeclaatay haween ka mid ah haweenadii ay maxramka la ahaa ama ehelkiisa qaraabada kuwa aadka ugu dhow ka mid ka ahaa. diintoodana waxay mamnuuc ka dhigtay dadka maxramka ah in ay isguursadaan. haweeneydaasi waxay doontay iyadoo xoolo doon ah inay boqorka guursato, dabadeedna ay xoolaha kaga faa'iidaysato. dabadeedna boqorkii waxa uu su-aasha weydiiyey nebi yaxya calayhi salaam in ay suurtagal tahay in uu guursan karo gabadha tan. nebi yaxya calayhi salaam si waadix ah oo caddaana ayuu ku yidhi gabadhaasi waa kaa xaaraan maadaama ay maxram ku tahay, kuumana bannaana inaad guursatid, ismana geydaan. hadalkiisu wuu caddaa nebi yaxya calayhi salaam. boqorkii waa u sheegay arrintii haweeneydii iyadoo cadhaysan oo xanaaqsan ayay u tagtay hooyadeedna waxa ay ku tidhi boqorka fitnee intaad isqurxisid oo iscarfisid u tag boqorka, dabadeedna isu bandhig, inna kaydahunna cadiim. u fiirsada dumarkaas waxay sida u galeen boqorkaas. gabadhii waa baxday, way isqurxisay, way iscarfisay, boqorkii bay u tagtay. kadibna waxay tidhi oo ka dalbatay in nebi yaxye la dilo oo kurtiisa la horkeeniyo madaxiisa. subxaanaka ya ilaah alcaalamiin, hadduu doonayo in uu ka sinaysto gabadhaas. boqorkii fitnadii naagta ayaa qaaday, ciidamadiisii buu diray. nebi yaxye waa lasoo qabtay, waa la gowracay, madaxay ka gooyeen, waa la hor keenay. marka boqorkii ayaa la hor keenay iyo naagtii xunka ahayd. markii la hor keenay naagti way faraxday. markay qotoshay iyadoo hooyadeed joogto oo boqorkii joogo oo ciidamadii soo dilay nebi yaxye ay joogaan, ayaa eebbe subxaana wa tacaala uu ku salliday in dhulka uu liqo. iyadoo taagan buu dhulkii liqay. eebbena waa u aargooyey nebigiisii nebi yaxye. maalinta qiyaamana cadaabaha sugi doona waa aada iyo aad bay usii daran yihiin. halkaasna buu ku shahaado qaatay nebi yaxyana. waa ficilkii yuhuudda. nebi sakariya way dileen oo way kala qaybiyeen jidhkiisii. nebi yaxyana way bireeyeen. nebi ciisena waxay ku sameeyeen insha allahu tacaala gadaal baan ka sheegi doonaa. dhammaan rusushii iyo ambiyadii loo soo diray reer banu israa'iil mid aanay ama dilin ama aflagaado u geysanin maba jiraba. bal ee waxaa lasoo sheegaa magaalada qudus waxaa ku ooli jirtay dhagax lagu dilay 70 nebi. 70 nebi ayay ku dileen hal dhagax. laa ilaaha ila allah. fitnadaas iyo dhibtaasan ilaahayana uu ka magan galnay. intaynu walaalayaal ku kulmi doona qisadan mid lamid ah waxaan kaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.